kusoo dhawaada xayaad markeed ayaa waxay ugu talagashay macaamiisheeda munaasabada bisha Ramadaan awgeeda oo goodho markaasi nagu soo fool leh inay idin sameysay qiimo dhimis aad u ballaaran oo ku saabsan qaybta markaasi maacuunta oo ah waxyaabaha markaasi aad ka looga baahan yahay waxaan markaasi aan ka marnayn in xayaad markeed inay soo kordhiyeen sanadkan maacuun markaasi cusub iyo kuwii hore markaasi u yaalay iyo kuwa kale naqshado kala duwan leh kama marna qaybihii haddii ay ahaan lahayd tarmuusadii oo naqshadahooda cajiib ay yihiin iyo qaybtii markaasi alaabihii lagu sameynaya sambuuska jabaatiga tarmuusyo bakeeriyadii iyo sidoo kale alaabo kala duwan oo markaasi ka mid ah maacuunta cusub ee xayaad market ay kugu sameynayso qiimo dhimis 20% munaasabada bisha Ramadaan awgeeda sidoo kale xayaad market waxay markaasi qiimo dhimis ay ku sameysay qaybta decorationka oo markaasi halkan ay yaalaan afaarihii loogu talagalay qaybta Ramadaanka hadii ahaan lahayd sharaxshada xinalalka daaraya ee bishii iyo xidigtii ay ku sugnaadeen Ramadaanka loogu talagalay alaabihii kale aad markaas wada garanayseen ee ahayd faynuustii iyo sidoo kale decorationadii kala duwanaa oo xayaad market aad ugu barteen dhammaantoodana waxa markaas lagu sameeyay qiimo dhimis 20% oo munaasabada Ramadaanka awgeeda oo goordho markaas nagu soo foodleh waxaan munaasabadan ay markaasi xayaad market ugu talagashay qiimo dhimista ay tahay 8 bisha Maaj ilaa iyo 31 ka faa'iideysi wacan